magacaaga walaal abshir cabsanaad baa abshir cabdisoo su'aashan ku weydiinaa waxa weeye caasimada joognan ka weydiinaya saddex su'aalood marka waxay oranaysaa maayir badan baa iska soo sharxay laakiin saddex mid baan ka soo qabanaa waxa weeye Cabdikariin iyo Siciid Jaamac iyo Solteko kaad oran leeyahay uu qalmaa maayirnimada inuu mar sanadka qabsado walaalan waxaan leeyahay waxa uu qalmaa maayirnimada ninka Cabdikariin Axmed Mooge sababtana walaal sababta wajigiisa ku qoran tahay ninka Cabdikariin Axmed Mooge marka xilka uu qalmaa waana xil ka sweey marka aad ma guriga leeyahay aanu waan u codeynaya wada codeynaysaa way aad iyo aad maasanta magacaaga wala magacaaga waxa la Hardoor Khadar Cabdiraxmaan Hardoor Khadar Cabdiraxmaan baa Hardoor ha way Hardoor waxaan ku weydiinaa su'aal yar oo xaaladda dalkeena ka jirtuna marka waxaan ku oran lahaa saddex waan ku weydiinayaa musharax oo waxa weeye Solteko يا عبد الكريم أحمد نوجي برخد يا سعيد جامع كيبات أقول الله عاصمة وقل معنا ما يروي نقرأ يو هرتبان سلام يا سدح بعد سلام يا إذا كنا حدا ليه رمضان كريم إنت هرت ودك كنا دور شوي بارت سكوسة كما قصص على هذين نقطة قلود دقايق دو كلا نقطة ما تهرت واضح عند الرو كوي شرع عاصمة اللوجوي إني ما أنتنا يشرحيه waxa taa dhibaatada koosgareys waxa weey wadankeena waan institution sharciyada dawlad ka jirino kuwii shalay caasimad u galay ay maanta sharaxan marka wax oran karaa anigu marka laga yimaado Solteko waxaan kale kuwan kale wada waa bilaadan istoo bilaadan marka anigu waxaan isleeyahay Cabdikariin Axmed Mooge hadii Ilaahay soo saaro caasimada in badan wuxuu ka bedeli doonaa waan ugu ridayaa waliba waan ugu ridayaa shay la tajir waan ugu ridayaa magacaaga walaal magacaygu xasan Turaabi labanaan soo dalnay ku maadaysan naxariis leh amaba Turaabi way hay magaca waxa ku dartay Turaabi ciidman Turaab mana maya si inta badan siyaasadaha bariga dhaxay iyo barigii Suudaan yahay maganaas marka nin la oran jiray xasan Turaabi oo dhintaan filaya la naxariistay marka siyaasadu falagan jiray marka inta badan siyaasadaha bariga dhaxay iyo kacdoonkii carabta ka socdayo waxyaabahaas aad u falagan jiray mood kadib markaasay mucallaqaasay ugu magac dareen xasan Turaabi way maanta waxaan ku weydiinaa su'aal siyaasadun ka hadlaysa malaha soo doonatan waxa ku oranaysaa wax xaalad uu dalka ka jirto saddex musharax baan soo qabanana marka waxa weeye Cabdikariin Axmed Mooge iyo Siciid Jaamac iyo barkhad waxaan jeedaa Cabdikariin Axmed Mooge saddexda ka isleed caasimada uu qalmaa maayirnimada uu ka noqon karaa caasimada meel buu si gaarsiin karaa يو برخد بتون سماها عبدكريم سعيد جامع يا Solteko ما كان هيستوى ونيو هورت نيو سومالي هورت انت بدن waxay tiraahdaa nin wax haystuun baa wax lagu daraa moogta marka ninka Solteko horta in badan buu nimcada soo shaqeeya marka imika waa faakays laakiin kulay ninkan maaragtay waa nin cusub moogtahay Cabdikariin Axmed Mooge ninkaas aad moodaa inuu yaraa maaragtay lambarnayn dhameystiran anu kaas ma yara qaada la mood marka ninkaas inuu codeeyna marka xaga dama hadaan ka xumaan ninkaas waa nayn dhameystiran weyn ninkaas waa nis fiican way aad iyo aad maasanta ayaa mudan walaal magacaaga Cabdixakiin Xuseen Xasan walaal Cabdixakiin su'aal baan ku weydiinayna su'aashu waxa weeye maayir badan baa horta dalka iska soo sharaxay marka saddex kamid ah soo qaadanna keebad soo oran leeyahay dalka kulli waxbuu tarayaa bulshadana waxbuu tarayaa yar dhalinyarta marka waxa weeye Cabdikariin Axmed Mooge iyo Siciid Jaamac iyo Solteko oo qiimaha haysteesna anigu xaggayga shaqsan marka tayda ka hadlo waxaan ninkan islaayay dalkii dalkaba waxbuu tarayaa maca dhalinyarada waa Cabdikariin Axmed Mooge soo maxaa ku dooratay way ya ninka waxaan ku doortay horta karti aqoon kowdhe iyo inuu yahay nin furfuran oo waxaan ku bulshada waxay hadba kolba kii hoose kiisa ninbu wuxuu ku sugan yahay ogde way marka labadan kalena maxaad iyaga lileed ku siisay labada kale de ninba ku taagin baa loo qiimeeyay ninka Cabdikariin Axmed Mooge ku taagay markay qiimeeyay labada kale way labada kale way aad iyo aad maasanta okay soo kuma jiraan magacaaga mahad xasan aadan mahadow waxaan ku weydiinayaa xaaladda imika dalkeena ka jirta marka waxa weeye musharaxiin badan baa isku soo sharaxay maayirnimada marka kad isleedahay caasimada wax buu qabanaya ayuun baad sheegi doontaa waxa weeye Solteko maayirka imika haysta iyo Cabdikariin Axmed Mooge iyo Siciid Jaamac anigu waxaan si ahaantayda leeyahay Cabdikariin Axmed Mooge waxaan ku doortay karti aqoon furfurcooni oo dhalinyarada u hayo xilkasnimo badan uu leeyahay aqoon badan uu leeyahay cid badan waxaan ku wari waaya aragnimo ma garatay
anu ninkaasaan wataa insha allah magacaaga xamse siciid jaamac xamse siciid jaamac su'aal yar baan ku weydiinayaa iska xaaladda dalka ka jirta marka waxaan ku oranayaa su'aashani saddexdan nin magaranaysa soo socda waxa weeye Solteko iyo Cabdikariin Axmed Nooge iyo Siciid Jaamac keed isleeday maayarnimo u qama dalkana uu anfacaya iyo dhalinyartiyo bulshada Soomaaliland ee Hargeysa caasimaddeena Hargeysa horta run baa fiican aan waxa soo dhan karayaa Cabdikariin Axmed Nooge Cabdikariin Axmed Nooge sababtuna horta dee dhiirigelin badan uu sameeyay dee wadanka uu yiri wax badan baan u qabanayaa iyo dee dhiirigelin laga dareemay daadu ayaan ku tiray adu markaa waad guridayaa sax aad iyo aad maasanta magacaaga walaal daakir waxaan ku weydiinayaa su'aashu waxaan u nasaa saddex musharax baan ku weydiinayaa garanaysaa oo u sharaxan maayirka caasimadda Hargeysa kad isleeday markaa adu bulshada iyo dhalinyarta cid walba isfahmayaan ayuunba dooran lahayn waxa weeye Solteko Cabdikariin Axmed Nooge iyo Siciid Jaamac Siciid kad isleeday adu caasimadda waxbuu taraya horta marka hore aanu Soltegan dooran lahaa Solteko sababtana sababta hadda magaciisa iga badbataan aan aqoon u lahayn hadana magaciisa meel walba lagu hayaayo ninka magaciisa iga badbatay uma aanu ay dooran lahayn way aad iyo aad u mahadsantahay magacaaga walaal magacaygu waxa weeyaan Mustafa Ali Axmedow su'aal baan ku weydiinayaa su'aashana waxay oranaysaa caasimaddan markaan ku noolay maayiro badan baa isku soo sharaxay laakiin saddex ka mid uma soo qaadanaa waxa weeye Solteko iyo Cabdikariin Axmed Nooge iyo Siciid Jaamac kaad isleeday caasimadda u qalmaa inuu maayirnimo ka noqdo horta Solteko dee uu soo hayay in badan ninkaas waxaan ku leenahay iska naso laakiin aan waxaan u codeyn lahaa Siciid Jaamac sababtana dhiirigelin buu sameeyay dhalinyaradiisu dhexgeliyay dadkii uu isbaray aad iyo aad mahadsantahay walaal magacaaga walaal Mubarak Cabdi Ismaaciil su'aal baan ku weydiinayaa waxay oranaysaa ku sheegaa caasimaddan kamaradu ma socotaa caasimadda aan imanka joogno ayaa waxa iska soo sharxay maayiro fara badan saddex mid ka soo qaadan laakiin marka waxa weeye Solteko iyo Cabdikariin Axmed Nooge iyo Siciid Jaamac kaad isleeday caasimadda ugu qalmaa inuu maayir ka noqdo saaxiib nimanka soo sharaxay waxaan anigu fikradeyda waxaan furan karaa Cabdikariin Axmed Nooge maxaad ku doortay sababta saaxiib run ahaantii waa nin kaga mira dhalin kara hadalku maanta leeyahay waa nin berrina rumayn kara oo run ahaantii runtan lagu liqi kara nimanka kale waxaan leeyahay horta Solteko waxaan leeyahay saaxiib waqtigaaga waa soo qaadatay in badan baan ku daaweynay doorkan waa nooga yaraha hadaba nooga yara dhaca aad iyo aad mahadsantahay magacaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مولود مهد محمد نور بلده مولود سؤال كويتينا وحوي عاصمتنا نكون والله هاي هرجيسة سيبها هامبا واحد صاشر هاي ما يربى بدن لكن صدق مربى سوق عادنا صدق هذا كذا سلا ذا عاصمة دوق الماء ما يرنو كنقون كريا وحوي صدق هذا كوشي يعني وصلتكو أو مكان حستا عبدالكريم أحمد نوجي يو سعيد شامع يو والله بس عصبين كذا سلا ذا مركز عاصمة دوق بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحنو بهن يقف عاصمة بدله أنا وحنو بهن شخص عاصمة بدله عاصمتنا يقول لما نقطع عاصمتها جيس كوك لا يكون سن أنا مركز شخص يكون سن دوني أنا واحد عبدالكريم أحمد موجي عبدالكريم أحمد موجينا هدوك يقول ستيل هيك وسوقوا لينا وحن كده يدونا مدو عن الله حسابتنا ونكل حسابتنا ما حيل كيسة يوحنا يري عن كل حسابتنا مدوني إننا ضد جولات ديجان كده ما أنت تكون صوص عندنا وحن دونا جولات ديجان كيوري كبدلنا كل حسابتنا سنة هو قادن أينو شقنا هذه أدوات ما حسنتي أنا ما يعاقة عبد الرزاق وش قلتينا هوي عاصمتنا الجنسية اللي ما كنا والله ما يهرب بس كسر هاي لكن صدق كم إنه ما أنت سوق بنا ما دام إنه سوق بكرين رجع هوي Solteko يسعيد شامع يو بحالك عبدالكريم أحمد نوجي صدق ذاك السلاح ده يروح النقون كرا ما يركع عاصمته واللي يرتي يدك بيشدوا يسفهم يعني كيف السلاح عبدالكريم أحمد نوجي عبدالكريم أحمد نوجي صوتك دورتنا هذا مركم مشرو دوان عندك أم دور بواتا أم دور بواتا عندنا بواتا وأنا أقول سامي وايد مركم مشري يا ما صدق ما يعاق والله سوير محمد وسؤال شو كدينا حوي عاصمتنا ما كنا والله ما يهرب بس كسر لكن صدق كم بدون من بدينا سوق كوب كرين قبل سوق قبلنا وحوي Solteko كيما هايستا عبدالكريم أحمد نوجي يسعيد شامع صدق ذاك السلاح ده وقل مع عاصمته ما يرنو كنا والله وكي horta walaal aad way mahadsantiin walaal horta waxa jirta dadkeenu wax qabiyaal la yiraahdo ku waashay laakiin markasta wax fiican wax tarka wadankeena eegno dhalinyaraduna waa inaga wadanka iskale dadkan waa weyn wadanka iyagu way ka macnaystaan
marka aniga aragti ahaanteeda ninka la siciid jaamac marka maxaad ku dooratay adigu kaambeyn soo jeediyay haddaan sababeeyo horta waan ognooda nin kastoo siyaasi maanta waddanka waxba ka cunaa marka aniga aragti ahaantayda horta anu ninkaas nagu ridaya aragti ahaantayda markaa sababtan ku doortay waxa weeyaan anu ismalihi ninkaas waa nin u baahan maanta wax bajad la idhaahdo waayo waa nin ganacsadaa businesskiisa waan garanana marka anu aragti ahaanta ismalihi waa nin wax bajad u baahan marka sababtaa darteed anu ninkaas socdaynaya diraa way aad iyo aad mahadsantahay walaal magacaaga armaan yare walaal armaan yare way su'aashan ku weydiinaa waxa weeye xaalad dalkeena ku sugan marka waxay oranaysaa saddex nin baan ku soo qabanaya oo isku soo sharaxay maayarnimo saddexdan waxa weeye cabdikariin axmed nooge siciid jaamac sooteeko ka marka haysta keed isleeday uu qalmaa inuu noqdo maayarka caasimadda dhalinyartana way isfahmayaan wada siciid jaamac sababta ku dooratay marka sababta wallahi waa wiil dhalinyaro waa wiil u qalmo waddanka sababtoo hadda dadkan kale waa dad iska yara waayeen ugu ridaysa marka ugu riday haan u codeeyay halka aad iyo aad mahadsantahay magacaaga magacaygu walaal siciid jaamac la yiraahdaa Abu Maa'id aan ku naanays dheerahay inta badan siciid jaamac su'aashan ku weydiinaya waa xaaladda dalkeena ku sugan marka waxa qoonaysa caasimadda aad maayar badan baa iska soo sharaxay maadaama aynaan soo koobi kareen saddex mar baan ka soo qabanna marka saddexdan ka isleedahay caasimadda uu qalmaa maayarna uu ka soo noqon karaa dhalinyartana way isfahmi karaan waa kii saddexdan aan ku kala sheego waxa weeye Solteko siciid jaamac iyo cabdikariin axmed nooge kad adigu isleedahay caasimadda uu sii qalmay sax walaal waxaan oran lahaa walaalaha muslimiinta markasta ugu nasteexayn lahaa ciddii maartay dadkeena diin ku xukumaysa maartay ummadda muslimiinta ay boqolkiiba boqol ku kalsoon yihiin diintiisa iyo dabeecadiisa iyo cadaaladiisaba cidaasaan muslimiinta walaalaha ugu nasteexayn lahayn marka waxaan dadka kale shacabka walaalaha ugu nasteexayn lahaa hadday madaxweyne noqoto iyo hadday maayar noqotoba cidda soo baxday la doorto inaanay caayin aanay wax ka sheegin inay u duceeyaan ويلا هنا نكتفي سبحانك صدحنا منا ما دورتين مركا ابو صدحنا waxaan oran laakiin diin ku saab maartay ku sifaysan ayin baa doorto way aad iyo aad maasanta magacaaga walaal aniga Axmed Dalaal Axmed Absadow su'aal baan ku weydiinaa caasimadeenan iyo dalkeena sidoo ku sameeyay ku sugaya marka caasimadda maayar badan baa iska soo sharaxay maadaama inaan soo koobi karin saddex ma ka soo qabanna saddexdan waxay oranayaan waxa weeye Solteko iyo Cabdikariin Axmed Nooge iyo Siciid Jaamac marka saddexda ka isleedahay caasimadda uu qalmaa barxad malaha soo goolada deegaanka yaxwa marka saddexda ka isleedahay adigu uu qalmaa caasimadda maayar ku noqon karaya anigu kulley waxay ila tahay cabdikariin mooge la yiraahdo marka sababta aad ku dhalinyaraayo aan istiri marka anigu cabdikariin mooge baan oran lahaa ninkaasi waa nin dhalinyaro ah ila muuqatan waa nin maartay wax badan caalamka la socda waxaan isleeyahay aragti cusub buu keeni karaya ninka markaan saa weegay anigu aqoon dheeraad meel geesanka saas weey marka eegtaa ninkaas baad qiimeyntiisa tiro ninkaas hargeysan facay anigu hargeysan mahi laakiin ninkaas hargeysan facay aan isleeyahay way aad iyo aad bad mahadsan